hindisaha ah ku hoos noolaanshiyaha calan waa dhaqan soo jireen ah oo la kowsaday bilowga ismaamulka in aadam calan ama bandiirad afka carbeed waa astaan u taagan ummad ka midaysan ahdaaf badan kuwaasi oo horaal gaarsiisan ilaa geeri ugu bareeri kara difaaciisa qarnigii ina dhaafay umulbixiisii ayay ahayd si kastaba markii nidaamkii looga soo horjeeday heeryada gumaysi ee reer galbeedka ee u ambaqaadnay taas oo ugu dambeyn salka u xaartay curashada dalal xor ah lehna calan ciidan iyo ciid ay xor ku yihiin yeelashada calan badala midka gumaysi ee ka dulbala lagayiga Afrika waxay ahayd bilowga taariikh cusub oo uu dal kasta ku naaloonayo loolan gumaysi diidnimo kadib dadaalkii loo galay astaan calan ee dal samaysanayo waa loo wada sinaa hase yeeshee waxaa lagu kala duwanaa hababkii loo kala maray surashada calan laftigeeda ayaa ah sida badi dadku qabaan tilmaan muujinaysa sifaha dalnimo iyo hiigsigiisa timaadada ee uu ku haminayo gaaristiisa sidaas darteed qoloba sidii la qumaneed ayay u dhigatay midabada tixraaca leh ee uu ku koobnaanayo calan 12 Oktoobar 1954 ayay ahayd oo markaas lagu jiray nidaamkii daaqiliga ama isku taliska ayay ahayd markii ugu horeysay ee calan loo hindiso Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta oo kale sanad walba waxaa dalka laga xusaa maalinta calanka waa maalin ka turjumaysa qarannimo midnimo iyo gumaysi nacayb 62 sano ayaa ka soo wareegatay markii la sameeyay calankeena waxa uu leeyahay sooyaal qiimo badan oo dal iyo dibadba lagu faano taariikhda calanka Soomaaliya kama bilowdo xilliga ay Soomaaliya ku jirtay maxamiyadda oo waxaa jiray isku dayo badan oo ay sameeyeen SOL xitaa ka hor inta aan Soomaaliya loo dhiiban Talyaaniga sida dadka qaarkii ay sheegayaan laakiin markii Talyaanigu uu la wareegay maamulka Soomaaliya 1950kii gumaystaha Ingiriiska waxa uu ku dhaqaaqay talaabooyin waali ah Ingiriiska waxa uu qaatay waqooyiga Soomaaliya NFD gobolada la yiraahdo waxa uu siiyay gumaystaha Kenya xeebta ama Djibouti waxa qaatay Faransiiska sidoo kale Ingiriiska waxa uu Itoobiya ku wareejiyay dhulka Soomaali galbeed waxa arrin culus noqotay in dhulkaas iyo dadka degan la isku keeno Israel markii ay aragtay in Soomaaliyiin faraha ka sii baxayso waxa ay ku fikirtay in la sameeyo calan qiimo badan oo Soomaaliyiin ka turjumaya waliba ka hor inta aan xurriyadda la gaarin 1960kii farshaxano badan ayaa la sameeyay dad badan ayaa dadaalay tartan ayaana loo galay sidii calan Soomaaliyeed loo sameyn lahaa laakiin ugu dambeyntii waxa la qaatay farshaxankii hindisihii uu lahaa Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo kamid ahaa leegada iyo midowga shaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed Maxamed Cawaale Liibaan calanka waxa uu ku sameeyay wax ka yar 24 saac laakiin waxa uu noqday calan ummadda Soomaaliyeed ka turjuma isagoo soo bandhigay xidigta cad ee shanta gees leh waxa ay ka turjumaysaa shanta qaybood ee dhulka Soomaalidu degto ka kooban yahay midabka buluugga qafiifka ah waxa uu ka turjumayaa cirka iyo badda dhulka Soomaalida oo mar walba midabkoodu buluug yahay calankan buluugga ah ee xidigta ka turjumaysa Soomaali weyn dhexda uga hardhan tahay waxa la sameeyay 12 Oktoobar 1954 maalintaas wixii ka dambeeyay Soomaalida waxa ka turjumayay calankaasi oo ah astaan ka hadlaysa Soomaali weyn iyo midnimo qaran dhinaca kale heesta calanka waxa ay leedahay taariikh gaar ah heestan waxa miraheeda lahaa Allah u naxariistay Abwaan Xuseen aw Faarax Dubad waxa laxanka lahaa Allah u naxariistay Cabdilaahi Maxamed Maxamuud Xirsi Qarshe Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sanadkii 1910kii sida lagu hayo sooyaalkiisa nolosha hase yeeshee hadba galintani iyo burburkii harsashada calan Soomaaliyeed waxa ka hoos dhashay caalamo badan oo dawlad goboleedyo ah kadib markii dalku la qabsaday nidaamka federaalka waana mid kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku foolan badqabka calanka sida dad badani qabaan intii la sameeyay calanka xidigta shanta gees dhexda kaga sawiran tahay ee calanka Soomaaliyeed maalintii naqshadiisa la sameeyay ee ummadda Soomaaliyeed ay u soo hoyatay guul aan la soo koobi karin calanka waxa iskale muwaadin kasto Soomaali ah ayaa calanka iskale
25 sano kadib dad dhif ah ayaa suuraysan karin maalintan oo kale halka jiilka maanta ku indhaqaaday nidaamka ismaamul goboleedna ay ku waabariisteen aroor cusub oo ayaankeeda calan u sidata fahamka ah qiimaha calankani leeyahay ayaa kuwaasan dariiq la'aan marka loo eego jiilka maanta wax ku bartay manhaj aan ahayn kii Soomaaliyeed balse marka laga halbeeg qaato dadaalka jiilalkani ku bixinayaan horumarinta dalkooda gaarista midabkiisa ka dhigan laf cirta samada sare Soomaali badan waxa ay rumaysan yihiin inay maalin dayaxa ku dugan doonaan waxayna ugu bareeri doonaan halis kasta oo ay ka sokayso si ay himiladaasi u xaqiijiyaan suuban bilow laabtiyo beerka bilow adiga ku beeran sidii biyo loo haraaday sidii dufan loo basaasay sidii barax maalingeedii adaan ku goolyoobay ogeygaada ku yaala bilowa uluglo calankayowa عيدروس محمود إيمان جبلان TV مقدشو.